doonaa. kow xasan sheekh maxamuud ninka koowaad ee hadda uu wato qorshaha ama balaan waa nin la yiraahdo senator xuseen sheekh maxamuud oo u dhashay hadame ligse oo madaxtooyada villa Soomaaliya agaasimo ka noqday. hadda xasan markuu yimaaday ardaydii simad macnii uu wax ku soo barayna ka midka ah 77 xildhibaan in uu soo qoraa la rabaa. xasan sheekh maxamuud lacag fara badan buu haystaa si uu doorashada teendhada ugu soo baxo. qof iyo cod waa been, waxaasi kalaam faaruqa waa. haddii xuseen sheekh maxamuud uu shaqayn waayo balaan b xasan sheekh maxamuud wuxuu wataa cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo u dhashay jiroon ayuu wataa. haddii cabduqaadir maxamed nuur jaamac uu shaqayn waayana qofka saddexaad uu wato waa mukhtaar roobow cali abu mansuur oo wasiirka diinta. mar dhoweyd oo sheekh mukhtaar loo tegay oo lagu yiri sheekh mukhtaar dadkan way dhiban yihiin adiguna dartooda lagu xiray hawiyaha u shaqaynin marka la yiri wuxuu ku jawaabay anigu raxaweyna ma aqaano laysaanna ma aqaano anoo xabsi ku jira xasan sheekh maxamuud baa isoo daayay isagaana u shaqaynaya baydhabana anoo madaxweynahan tagayaa. mukhtaar roobow erayadii ugu dambeeyay uu yiri waa kuwaas. saddexdaasi ayaa A iyo B iyo C villa Soomaaliya ay wadataa. wixii ka dambeeya waa Shariif Xasan iyo Farkeeti. shanaan kuu sheegay. Shariif Xasan iyo Farkeeti waxay ka dambeeyaan xuseen sheekh maxamuud haddii la waayo jaamac haddii la waayo mukhtaar roobow. waa sirta ugu dambaysa aan ku siinaayo. sidii marka roobow baydhabo loogu xiray oo xamar looga soo dejiyey xabsi loo geliyey lafta gareen loo geeyey sidaasaa u qoran lafta gareen hadda in xamar lagu xiro. warkayga kole wuu gaari doonaa. aadan madoobe isaguna mar dhow inuu ka dego baydhabo iyo xudur uu soo wareego ayaa loo diray. isaguna waa musharax maadaama 7 bilood ay isku dhammaanayso baarlamaankana uusan sii shaqayn karin oo doorasho la aadayo waa mid dadban. isaga marka wuxuu rabaa inuu iska soo laalaabo arrinta federaalka stateka inuu aado madaxweynaha stateka u sharxan yahay aadan madoobe. lacagta diin xumada na wuu qaatay caruurta 18 sano inkastoo aqalka sare ay diidan yihiin. wuxuu ka xishooda male. xasan eelay waxaa lagu yiri aadan madoobe la shaqee inuu madaxweyne baydhabo ka noqdo. isagana xasan sheekh maxamuud baa wata. marka xuseen sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud aa wata. jaamac xasan sheekh maxamuud aa wata. mukhtaar roobow xasan sheekh maxamuud aa wata. ninka la yiraahdo aadan madoobe xasan sheekh maxamuud aa wata. gudoomiye dhammaan ee baarlamaanka deegaankiisi waa loo wadaa. xasan xuseen eelay oo issharaxi lahaa isagana waxaa lagu yiri la shaqee aadan madoobe inuu madaxweyne ka noqdo baydhabo. intaasi waxaa loo dig iyo dam leeyahay 77 xildhibaan oo ka soo baxaya baydhabo doorashada dadban ee uu ku qasban yahay xasan sheekh maxamuud inuu ku soo baxo si la mid ah sidii teeramkii hore uu ugu soo baxay. akhbaarta ugu dambaysaan ku siinayaa. ninka dhibaatada ugu badan idinku wada dadkiinaasi Maryland ku abtirsada ama digil iyo mirifle la qaban la'yahay oo intaanoo dhibaataa idin horseeday warkayga jeclaada ama necbaada waa nin la yiraahdo mahad cabdiraxmaan aadan oo aad u taqaanaan taliya shub taliyaha asluubta federaalka Soomaaliyeed oo aniga abti iigu aadan.
ninkaasi ayaa qasaaya lambar 1 digil iyo mirifle adeerna u ah Cabdicasiis lafta gareen gabadha lafta gareen uu qabana isagu uu dhalay isagaa lacag soo qaatay lafta gareen wuxuu ku leeyahay beesa qaado ka tag kursigan ciddii rabta ha qabsato xasan sheekh maxamuud uu wato shubbaa sidaas taagan saraakiisha baydhabo joogtana shubbaa ugu badan ay ka amar qaataan marka taliya shub wuxuu taagan yahay lafta gareenow beesadaada qaado boorsadaada ka qaado baydhabo ka tag kursigan dhaaf xasan qofkuu raba ha keensado shub oo lacag soo qaatay oo askari ahaa weligiis lacag aan arag ayaa dad iyo duunyo iyo diin wixii digil iyo miriflaha gadanaya ninkii la islahaa uu difaacaya xataa wiilkiisu ku keenay xasan qofkii wata ansax qofkii xasan aan wadanin ee kor yimaada xabadda dabada laga gelinaya this is what's going on lafta gareen wuu ogyahay sababta lafta gareen intaasi uu la aamusnaana xasan sheekh maxamuud kaliya ma ahan adeerkiisa ku dhagan oo laf dhun gashay u noqday digil iyo miriflahana taliya shub waxay ku xishmadaynayaan lafta gareen dartiisi lafta gareenkiina yaciska ma dhigi karo qof ka celin karaana ma jiro oday digil iyo miriflaha intuu soo istaago shubow waa khaldan tahay qadiyadda qowmiyadda ka leexa dhigi karana lama hayo wuu dili wuu xiri xasan iyo isaga tafta isku martay xasan qofkii ka hor yimaada dil baa u qoran taliya shub xaggiisii lafta gareen baa ahaadee iyo xarig marka digil iyo mirifle isagaa yaqaana doontan ama baddan sida uu uga dabaalanayo qish kalaan ku siinayaa magaalada Kismaayo markuu xasan ka soo degay axmed madoobe xasan siduu rabay markuu ka waayay isagoo caraysan New Jubbaland garbahareeya lagu dhisay hadda ama ku guuleysto ama ku guul dareysto axmed madoobe maanta golaha wasiirada uu la shiray dagaal loo diyaar garoobuu yiri xasan uu imaanaya dagaal isagoo ku jira waxaa ka go'an xasan inuu doorasho New Jubbaland garbahareey uu ku qabto lafta gareen iyo isaguna lafta gareen xasan sheekh maxamuud taliya shub kumanaan jeer hadday isku daabnaadaan xasan sheekh maxamuud waxaa ka go'an lafta gareen inuu dhaafiyo kursiga baydhabo sabab ma aaminayo 77daas xildhibaan lafta gareen in uu ku boodi doono sidaasuu aaminsan yahay xasanna 77da u cad masiirka dadkan godka lagu ridaayo dhulkoodana kadib loo dabamarayo la qabsanayo isaga 77daasi ma ku aaminayo lafta gareen baa kuu soo qoraya kitaab 100 kitaab hadduu mar ma aaminayo waa inuu geystaa qof uu isagu wato u soo qoraa taasaa ka go'an si taasi ay u dhaqan gasho lafta gareen beesadaada qaado bax hadduu diido baraawe ayaa doorashada lagu qaban rabaa la geyn doonaa xuseen sheekh maxamuud jaamac iyo mukhtaar roobow shariif xasan iyo aadan madoobe iyo xasan eelay iyo farkeeti meeshaasaa la geyn rabaa iskeejalaan qoran hadda waxaan ku xaqiijin karaa 2500 oo askari oo abgaal iyo habargidir iyo mursada kaliya ah qabiil kale aan ku jirin ayaa hadda baraaw la geeyay now believe or not xitaa askarta saraakiishooda ayaan kuu sheegi karaa magacyada Britole waa habargidir abgaal iyo mursade bes ciidanka iyagoo toos loo geyn karo
habeen ilaahay keena dooman baa lagu keenayaa xitaa qoryaha iyagoo aan rakibnayn culculus inta la geeyo meesha iyagoo furfuran ayaa meesha Baraawo lagu rakibayaa askarta qaar iyagoo shacabay tagaan markaas kadib qoryaha waa loo keenaa doomana loogu keenaa way rakibtaan marka aniga isoo fiiriya ama isoo caaya raxweyniyana ilgaluus idinka isu xoog badan ma arkayse waa la idin qabsaday rumayso ama ha rumaysan haddii aydan iska qabanin ninka koobaad taliya shub oo lafta gareen adeer u ah nabadgeliyo raxweynay waa ahaateen haddii aydan iska qabanin xuseen sheekh maxamuud waad